wasiirka cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid oo maanta soo gaaray magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer safarkan wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ku qotomay inuu dhagax dhigo xafiis cusub ay gobolka Togdheer ku yeelan doonto wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxaana dhagax dhiga wasiirkani ku weelinayay maamulka gobolkani Togdheer qaar ka mid ah laamaha wasaaradaha cadaaladda ka shaqeeya ka howlgalo gobolkani Togdheer waxaana si rasmi ah u dhagax dhigay wasiirka iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer xaruntan cusub ee cadaaladdu ay ku yeelan doonto magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ugu horeyntiba waxa halkaasi kala hadlay wartabiyeenada gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye isagoo u mahad celiyay wasiirka cadaaladda Soomaaliland xafiiskan cusub ee ku hirgelinaya gobolka Togdheer waxaana ku dheeraaday in xafiiskan cusub ee maanta la dhagax dhigayo uu ka mid yahay mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo gobolkani Togdheer wasiirka cadaaladdu halkan maanta wuxuu soo jirmaado halkan yimid inuu dhagax dhigo oo inoo furo xafiiskii wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer runtii cadaaladdu waa shayga asaasiga ah ee ummadeeqa ummad adduun loo qaybiyo waxba uma taro yani ilaahay baa deeqdiisa uu gaarsiin karaa inoo sheegay cadaalad ma wax tarta bini aadamku walaalka iyo wiilka waxaad ku kula badan kara waxa weeyaan waa cadaaladda loo baahan yahay maanta xafiiska cadaaladda inuu dhagax dhigaynaa ugu dambeyntii waxa halkaasi wartabiyeenada kala hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid oo faahfaahin ka bixiyay mashruucani ayaa waxa uu tilmaamay inuu yahay gobolkii saddexaad ee laga hirgelinayo gobolka Togdheer xafiis ay yeelan doonto wasaaradda cadaaladdu waxaanu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay hay'adda UNDP oo qayb laxaad la ka qaadata cadaaladda Soomaaliland inay mashaariicdani ay fulinayso hay'adaasi asagoo ka hadlay arintaasi waxa uu yiri sida tan runtii farxad bay ayay noo tahay saaka inaanu dhagax dhigno xafiiskii wasaaradda cadaaladda xafiiskii gobolka ee wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer ruuxantii waa xafiis aanu isleenahay kaalin weyn buu ka qaadan doonaa xaqiijinta cadaaladda dalka isku xirka hay'adaha bahda cadaaladda iyo ka warhaynta dhibaatooyinkooda iyo u xilsaarnaanta horumarinta hay'adaha bahda cadaaladda waa xafiiskaynu ka sugayno weeye inuu intaaba ka soo uu guto weeye waa xafiiskii saddexaad ee runtii aanu ka dhisno gobollada waxaa ka horreeyay uun laba xafiis oo aanu midna sool ka soo furay midna sanaag gaaba iyo lascaanood oo February bilowgeedii sanadkan la furay baa wax xafiis gobol oo wasaaradda cadaaladda leedahay labadaas ka horeeya labadaasna sanadkan ay noo furmeen hore intii dawladda Soomaaliyeed jirtay ama ka horeysay ma jirin runtii xafiis gobol oo wasaaradda cadaaladda leedahay oo dhulkaba ka jira ma jirin inta badan wuxuu baa nooga wakiil ahaan gudoomiyaha maxkamadda ee kolba halka u sareeya hadduu gudoomiye degmayay iyo hadduu gudoomiye maxkamadda racfaan yahay intaba ku qolooyinkaas wakiil looga ahaan jiray wasaarad ahaan maanta runtii waxa noo suurta gashay inaanu maamul daadajin aanu samayno oo saddexda gobol aanu haddii la yiraahdo ilaa imaka marinayno aanu rajaynaynana kuwa kale ka dhadhow oo kuwa waxaanu horumarinay durugsanaanta ay naga durugsan yihiin ayaanu bal horta midba ka sheeyo gaarsiiya maamul daadajinta dabeedna sidaa u soo wada oo ka Hargeysa ugu waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa hay'adda UNDP gargaarka ay hay'adaha bahda cadaaladda mar walba ay la garab taagan tahay ruuxaantii waa hay'adda ugu mudan ugu weyn ee hay'adaha bahda cadaaladda wax tarta asigastaba ha ahaatee mashruucani maanta la dhagax dhigay ayaa ka mid ah mashaariicda horumarineed ee maalmihii ugu dambeeyay laga wafulinayay gobolkani Togdheer waa barwaaqo aadan Maxamed shabakada caalamiga Daad Madheer News magaalada Burco.